Tiyor, Bugio di Galko, Baro Yeho di Pau Elindatka, so Bararugay. And ragwaragi hore, hada lawa intu yiri. Ani waxaan kula dardaarmaya dadka da'da yar ee Soomaaliyeed meelay joogaanba inay si kasta u noqotaba ay u bartaan afkooda hooyo. My eyes hurt. I don't know how to say eyes in Somali. Just try. Eyes hurt. You're kidding me. Wallah, I don't know. Okay. My eyes hurt is Oh, I knew it because they used to come in the agar when I was a little. Does that mean green eyes? I thought it was red eyes. waxaan u sheegayaa dhalinyarada inta joogaan in ay maaragtay inay dadaalaan oo af kasta marka baranaysid qalad waa dhaxaysaa qasab ilaa maanta waa qalad badan waan dhaxay af Soomaali mar waxaan dhaxayaa xaskeyga way wuu imaanaya wax saas oo kale waa qaldaya waxaan ku kalsoonahay in qof kasta oo da'ayaro Soomaaliyeed haddii uu rabo inuu si fiican ugu hadlo Soomaaliga weliba inuu garto hadalka odayaasha inuu barto mahmahaha iyo sheekooyinka oo abkii hore laga dhaxlay. aniga waxaan bilaabay barashada Soomaaliga 50 sano ka hor weli kama sal gaarin weli waa si baranaya waxaan doonayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ila bartaan afkooda hooyo ee aad iyo aad u macaan u qurxoon. You know, every day my mom wakes up and she has this cute nickname for me. It's called Qasaro. She said it means beautiful and I love her. This morning she had a new one. She said I'm a dandan. I think that means that I'm really smart. I don't know, but I love my mom. luqada iyo dhaqanka waa muhiim caruurtaada af Soomaali bar kulana hadal waxay maateen shirkadii saacada habeenimada caruurtaada u sheeg sheekooyin sida diin iyo dhawaaqo igaal shidaad iyo degder اللغة هي العلمنا يدين عين والله أنا شجع إن كل في الصومالي كوها شو بتشوفه إنا لله وإنا بس في الصومالي ده واحد يقول الجو سكوت والله سكبح واليوم حايس